basku yaanu idin jeedin ay dhacday naadeer السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ودوال السلام خيرت قيمة هي قدرنت بدل ملك استوت كذا على سات كشوفته واحد لا يحي سودو هذا أحمد فصح فضلا هدية تامر كورسي لايكتا سبسكرايبتا سو كان المقال هدي وقال مشير وصين دون تشيرتا وأنتم مع سنة المقال ده صوريكو فضلا هدية تامر كورسي أي قلب خير سبسكرايبتا سو كان لايكتا وأنتم مع سنة بقول كيف بقول أيام كلها يحي أوكي ما توحين فلقين دونا الصحة كجريجة معناها السعودك قارضها يوروب iyo Turkiga Turkiga oo furay xuduudaha dhammaan qaxootiga joogay dalka Turkiga macnaha uu fasaxay awal markii hore waxaan arki jirnay dad far badan oo lagu xiray macnaha xuduudaha Turkiga iyo Greece u dhaxeeya dad far badan oo lagu xiray badda Greece iyo Turkiga u dhaxeeya kuwaas oo uu Turkigu xidhxiri jiray xabsiin u diri jiray qofku dhowr jeer ku qabto badda taas waa sharci loo yaqaan okay bal waraysan ka qaaday dadkii baxayay hadii aan daawan xagga saraan ku dhigay muuqaalka وكا سمعت معناها دعوة وعلامات النوع عواج تعبان ساعة تتنحق سنة تعبان ساعة قصة بحيث أنت هل كتاو رئيسك هرتمرك هراي لا لما يسترو مقالة عن كل صوده هتأكدين حاجة تركيا أو معناها أفري حدوده قحوتيك تشوقي تلك تركيا أينو ما أنت تستطيع أن تعمل دونا إيوه بل وحيابها كتيرة معناها فرحة في الصعد كا مركب روح دوم على اسميد معناها كوتربانا به سفر كني بس إميكا وسفر سلاي فلاس عناي معناها وسفر بلا ربا وسفر بلا مرارة وسفر بلا ربشة فهاي تبغوا تعاونوا سورة ولا عيالا dadka baxaya tiradooda kor ayay u dhaaftay 3,400 waayo tiradooda dadka baxaya waa la yaqaan macnaha dadka qaxootiga ku jooga dalka Turkiga si fiican baan nood u haya tiradooda bal wixii dad oo laga qaaday ka hornadu waa dareeray ana maxay dhigay meesha Turkiga ayaa albaabada u furay xuduudaha uu la leeyahay xuduudaha uu la wadaago qaaradaha Yurub mana joojin doono qaxootiga u gudbaya dhanka qaaradda Yurub taas waa xaqiiqo hadda ka hor baa waxa dhacday 2015 taas oo kale balse waxaan daawan doonaa fiidiyoga xiga macdooyinka ba free ku baxayan iyo meesha maxaa ku dhigay dad Turkiga joogtan iyo qaada labtaado bax okay bal waxaan daawan doonaa muuqaalada laga soo diray macnaha dhanka iyo magaalada Istanbul macnaha Istanbul oo si waliya looga baxayada way Soomaalida gaar ahaan waxay ku badnaayeen meelaha la isha baydhabo waa meelaha aadka ay Soomaalida isugu timaado waana meelaha caanka ka ah magaalada Istanbul balkuwa soo eegi doono how dadka baska raacay iyo dadka doonta raacay iyo dadka runtii lama qiyaas karo hadda ugu yaraato 3,000 bay la xalay la shalay baxay ساكن محابة حي ترى ضحك بدن بل وين تعاون بنا بوقالك أول كوتربان بلقوا بحتريه إمك واحد كنا بس الدولة أي آخر أشكرين ساعة تصوير حقيقة ولا فلود وجد بحي تركيا شوكا بس مركب روح لقوا بحتر العاقة قارية 6 كونية سيادة العاقة قارية دونت مركب نقطنا كونية 6 بقول كونية لا بقول حلو رجري معناها بح أهان أو واحد هاي دونتا بقول كدورنا واحد هاي حوالات الدحدة يدكوا هاي نسا بس ساميكا دونت واحد لقوا على الحق بقول دورية لا بقول مال هذا يقول بدنا 6 بقول بارن كرانو شفت لقوا بحتر كتن دولار بقول بحيا أنا محايد اللي جاي ماشي على يا سنة اسمها لكن وحن معناها تذكر Soomaalida faraha badan ay soo boqolaysa dalka Turkiga xabsi fara badan halka ay jirto macnaha inay aan intee albaabada xiran doona isagu laftarkiisu waayo waxa ugu jirtay faa'iidooyin fara badan xagga macnaha dhaqaalaha iyo waxyaabo fara badan bay faa'iido ugu jirtay dalka Turkiga marka runta laga hadlo balse imka waan ogaan doonaa waxa ka soo cusboonaa dalka Turkiga waa idin soo macnaha
baskii waan istaagin ayaa albaabada daaqadaha la haystaa ilaahow annagaa wax aragnee waxaan cadcaaday turki maaha waa Siiriyaankii macnaha qaxootiga kusoo galay dalka Turkiga iyagaaba iminka ugu tiro badan macnaha Soomaalida ka tiro badan runtii marka la eego Soomaalidu mar walba iyagu way sii boqolayeen way sii socdeen iyagu kuma sii hakaneen macnaha kharashaad bay ka baqayeen macnaha dalka Turkiga waxa la yiraahdaa inta badan kharashkiisa aad buu jaban yahay qof ay soo garaacayeen macnaha iga raali kool bay soo yara galay macnaha dadkii ugu faraha badnaayee boqoli jiray Soomaali bay ahaayeen iyo Siiriyaanku inkastoo aanu aad u bixi jirin oo lacagta lagu baxaya ay macnaha ku adkaan jirtay dad qaxootiga wadankooda ka soo qaxay lacag fara badan aan haysan ay ahaayeen macnaha laakiin Soomaalidu mar walba darasalayaasha Turkiga ahaayeen dadka ugu faraha badan leh macnaha Turkiga uu faa'iidada ku hayeen Soomaali bay ahayd balimka iyo macnaha Turkiga wixii dambe inuu Soomaali cusub keeni doono in kala warmahayaan oo bal waneegi doona baskii aanu idin jeedin ay dhacday naadir waxa guriyay ilaa xalay saqdi dhexe macnaha labadii habeenimo kolba soo taqaanaan labadii habeenimo kowdii habeenimo uu socday baan ku kala joog ma lahayn meesha waxay ka daran caruurta yar ee macnaha jafta maraysa jafta waxa la yiraahdaa lugta markaad ku gasho macnaha Turkiga ilaa iyo Greeka ayaad lug ku maraysaa macnaha taas dhibaato ahayd laakiin iminka way ka sii fududahay sidii hore macnaha sidii hore way ka fududahay iminka boqolkiiba waayo baabuur bay dawladda Turkiga siisay ay ku gurayaan dadkan baskii baa qaadi la halkii bas baa qaadi la dawladda Turkiga aad bay dadaalaysaa waa ku mahadsantahay baa dhala madaxweyne Erdogan markasta waa waxa dhalaha waa dawladda kaliya islaamka ah gaaladuna ma jecel inta badan inay islaam u madaxa la kaco taawan la huba macnaha inuu islaam madaxa la kaco ma ogola macnaha gaaladu ma ogola inay islaamku madaxa la kaco Turkigana lama ogola inuu madaxa la kaco taas waa xaqiiqo waxa dhalaha macnaha dawlad kasta muslimiina Turkiga waan joogo horo socda waayo aad bay noo ixtiraamaan aad bay noo soo dhaweeyaan marka aan taxi kareysana ama luqadaha inkastoo cilad yar ay naga haysato af Ingiriisina garan maayaan af Turkina garan maayaan halkaas bay cilad yar ka jirtaan okay balse waa dawladda kaliya ee muslimiinta ugu wanaagsan Sacuudiga wada aragteen waa la iscadaabaa waa la istarxiilaa macnaha Sacuudiga anu wararkiisa si fiican baan u hayaa adiga laftarkaaga daawanayna wad haysaa Sacuudiga macnaha inaan wanaagsaneyn balse waxa la yahay Turkiga horo socod markasta waan jeclaan lahaa Turkiga balse qof kasta bahami buu leeyahay saxaafadii baa la meel ay wax ka sawirto bal ninka cadaanka aagaydu way soo dhig doonaa ninka cadaanka aagaydu wuxuu leeyahay meel wax ka sawiro waxa la leeyahay wixii baxaya ilaahay macnaha idinku ku guulay safarkiina horena u socda guulna way dirajeenaya sida macnaha marka ilaahay ay ka dhigo aabii hooyo meel kasto aad ku socotaan meel kasto aad tageysaan insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaan kamarada la dhex qaado meelaha ugu faraha badan ee laga baxayo Soomaalida ay ka baxayso gaar ahaan dhulka insha Allah waana suubin doona labadaba waa Soomaaligeeni macnaha waa dadkeeni waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalada aan soo dhigo markastaba fadlan hadii ay ku cajabeen muuqaaladani like saar sidoo kale share gare waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalada soo dhigo fadlan share gare hadii uu qalbana subscribe saar like tan sidoo kale waxba ka dhimaysan taas waynooyo isu soo noqosho dambe